Assalaamu calaykum. Maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa dhalinyarada inta badan ku nool dalalka Asia ama Aasiya oo guud ahaan la isku yiraahdo Asia. Run ahaantii waxaa ku jira dhalinyaro aad ay u adag tahay nolosha ay ku nool yihiin iyo maalin walba sida ay ku helaan raashinka ay cunaan, waxyaabaha ay ku nool yihiin. Haddaba sida aanu baranay annaga Soomaali ahaan haddii aanu nahay, waxaanu leenahay dhaqan noo gaar ah in maanta raashinkeena qof ka mid a qoyska uu soo shaqeeyo uu si qabow ayar inoo keeno annagana sidaa daraaddeed markii la kariyo kadib aan si qabow oo tartiib aan ku cunno innagoo aan garanaynin halka uu ka yimid sidii lagu keenay iyo waxaasoo idin taasoo sababtay in aan ka fikirin mararka qaar waxa aan cuni doono oo aan kaliya isxaadirino waqtiga aan wax cunayno. Halkan maanta waxaan ku daawan doonaa sida idin muuqata muuqaalkan waa nin dhalinyaro aad u da'yar waxa uu ku nool yahay mid ka mid ah dalalka Asia. hase yeeshee kaligiis ma ahan, inta badan dhalinyaro badan oo ku nool gobollo ku yaala dalalka Asia ayaa sidaan oo kale maalin walba ahi waxay u ugaarsi tagaan oo ay aadaan ugaarsi khatar ah mar walba halis ay kasoo gaari karta nafsadooda, taasoo mararka qaar sababta inay ayagoo halis la kulmaan isbitaalana loo geeyo, qaarkoodna ay u geeriyoodaan halistii kasoo gaartay ugaarsigan naftiis halignimada ah. Muuqaalkeena maanta ayaan ku daawanaynaa ninkan dhalinyarada ay idiin muuqda maantay waa subax hore waa uu soo baxay waxa uu soo doonay wixii maantay ama caawa ay cuni lahaayeen si uu ugaarsado. Mar alaala markii uu soo dhaqaaqay waxa uu la kulmay meel ay yaalaan ukumaha yaxaaska. waa uu kusoo daalay in badan uu isku dayay inuu yaxaas ama malay uu kusoo dilo biyaha dhexdooda. ugu dambeyn waxa uu go'aan ku gaaray qorshe ah in uu halkani ku ugaarsan kara ama halkan uu dabin ugu samayn karo ama siriq yaxaaska si fudud halkaasna uu ku qaban karo. run ahaantii aad ayay u adag tahay inaad fallaar soo qaadato isla markaana aad biyaha dhexdooda kusoo ugaarsato adigoo aan isticmaalaynin wadooyin kale. ugu dambeyn waxa uu bilaabay dhismaha iyo hirgelinta barnaamijkii ahaa dabinka ama siriqda oo uu la doonayay inuu ku qabto yaxaaska. waa uu bilaabay isla markii dhismaha aanu ka gudubna muuqaalka maadaama uu dheer yahay inta uu wax dhisayo. sida inoo muuqanaysa qorshihii uu waday dhisitaanka dabinka ama siriqda uu ku doonayay inuu ku qabto yaxaaska run ahaantii waxa uu maraya heer gabagaba ah. waa uu dhammaystiray sida aan dareemayno. waxa uu ku dhisay meel halbowle ah ama waddo uu maray yaxaaska. saas daraaddeeda maadaama dhulku uu weyn yahay xayawaanka iyo bini'aadamkaba sida aynu wada ognahay caqli ahaan way ka siman yihiin marka ay timaado isticmaalka dariiqyada iyo wadooyinka. saas daraaddeed xayawaanku dariiqa meesha ka bannaan ayuu mar walba isticmaalaa oo uu maraa. xayawaan sida uu yahay oo kaliya uma maro meelaha adag oo kaliya. haddii waddo uu kusoo aado meelna ay ka bannaan tahay meelna ay ciriiri ay ka tahay run ahaantii waxaynu wada ognahay inuu si toos u marayo qaybta bannaan sida bini'aadamka oo kale. saas daraaddeed waxa uu sameeyey maadaama meesha ay ballaaran tahay space weynna ay leedahay saas daraaddeedna uu dhinacyada mari karo yaxaaska waxa uu go'aan ku gaaray inuu ku tallaalo isla markaana uu ku mudo geedo waaweyn si uu yaxaaska halkaasi ugu arko inay ciriiri tahay isla markaana aan la mari karin. meel dhexe oo yar oo waddo ama dariiq ah oo kaleeta ayuu u baneeyey si halkaasi uu u maro isla markaana dabinka ama shabaqa uu ugu dhaco. waa uu dhameeyey isla markaana waa uu ka tagay hawshiisii waa uu qabsaday. ma jirto rajo ah ama kalsooni boqolkiiba boqol ah oo uu ku qabo inuu natiijadani wax ku heli karo, hase yeeshee waa dadaal iyo isku day uu doonayo inuu natiijo miro dhal uu ka soo saaro isla markaana uu wax ku helo. waa uu ka tagay dhowr saacadood ayuu ka maqnaa ilaa iyo ku dhawaad 5 saacadood ilaa 6 saacadood. muddo kadib waa uu soo laabtay guriga ayuu tagay, dharkii ayuu iska soo bedelay. ma oga marxalad ahaan waxa uu la kulmi doono, run ahaantii waa 50-50 ama laba mid inuu wax helo ama inuu wax waayo. waa uu soo dhaqaaqay maalin walba waxa uu kasoo gudbaa biyaha dhexdooda. biyaha khatar ayuu kala kulmi karaa maxaa yeelay xitaa yaxaaskan uu doonaya inuu ugaarsado biyahaas dhexdooda ayuu kasoo baxay. waa uu kabala yahay wax kaba muuto. waxa uu ku nool yahay nolol aad u adag oo aan ahayn nolosha run ahaantii ay ku nool yihiin dhalinta Soomaalida. waa uu yimid run ahaantii shabaqii waxa ku jira yaxaas, dabinkii waxa uu galay yaxaas aad muddo yaxaas dhexdhexaad ah oo aan saas u weyneyn. waa uu yimid waxa uu marka bilaabayaa qorshihii uu ku qaban lahaa ama gacanta ugu dhigi lahaa. waa xaalad aad u adag yaxaas caraysan oo shabaq aan filaynin ku dhacay inaad maanta qabata ama gacanaad ku dhigtaa. sida idiin muuqata yaxaaska afka ayuu kala hayaa, aad ayuu u caraysan yahay, dhanba mar ayuu u duulayaa. waxa uu isku dayaa inuu qabto sida run ahaantii waa halis aad u weyn. waa kaligiis haddii uu dhaawac soo gaaro ama dhib soo gaaro cid la socota maanta waan ilaahay ahayn ma jirto oo saaciideyn karta ama caawin karta. dhanba mar ayuu ka marayaa si uu u mashquuliyo isla markaana uu u gaado oo uu u qabtay yaxaaska. runtii aad ayuuna uga baqayaa wax kaba muuto. khatar kale ayuu la kulmi karaa oo ah in yaxaasyo kale ama bahalo kale ay goobta yimaadaan. ugu dambeyn waa uu qabtay. waa xaalad aad riski u ah isla markaana halis mar walba gelin karta nafta qofka hawshaani ku jira.
waa nin aad u da'yar isla markii. Waa uu qabtay ugu dambeyn isla markaana madaxa ayuu ka qabtay. Sida ayuu ku qaatay isagoo mar kale ku laabtay inuu ka gudbo biyihii uu markii horeba soo jiiray, isagoo mar walba halkaas kala kulmi kara xaalad aad u adag. maanta mawduuceena intaan ayaan ku egnahay intaan ka gaarayna ama aan ka soo gudbin doono mawduuca xiga waa Mucaawiyo idin la sidaayay nabadgelyo. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ugula saaxiib oo saar subscribe kan iyo barnaamijka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.